waxaan rabaa ragga culimada ah ee diinta dhiga dugsiyada dhiga in ilmaha xirfooyinka la baro oo inay noolaadaan oo ay diintiina badbaadiyaan bini'aadana ka maarmaan laga shaqaysiyo hadda meelahaas aan ka nimid xaqiiqatan waxa dhacda nin subaxii dhakhtar ah ama qaliin aadahaya ama meel kansar u fariisanayo dhakhtar dhameystirana galabkiina tafsiirka iyo xadiiska akhrinaya masaajidka markii masaajidka wax ka halaabaana aan fuunda u yeeranayo injineer raasanayna inta jeenis gashada asugu tubada bedelahaya oo leerka bedelaya oo ma taqaana kaar rooga bedelahaya wax walba sameynaya qofkaas muxuu faa'iiday waxa weey waa soo shaqaystay dadkii jirana waa badbaadiyay kuwii diinta u baahnana waa badbaadiyay masjidkiina ajir buu ka helay waqtigiisana waa galiyay diintu ka akhrinayaa tubadii ka jabtay leerka waa u hagaajiyay marka qofka wax qabsan kara ma ahsana diina wa dunya ida ijtamaaca weey maxaa ka wanaag badan diinta iyo dunyada ku kulmaan laakiin diintu waa fiican tahay cibaadadu waa fiican tahay khayrku waa fiican yahay inaad meel la gasho ku khalwayso laakiin waxa ka fiican mid dadka anfacana noqotay sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wa sallam waxa inuu kaga khayr badan oo kugu nafci badan adinka midka dadka ugu nafciga badan marka noqdo ku dadka ugu nafciga badan aad iyo aad baan u mahadsantahay khayr badan Allah siiyo